بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد نوحل الصدر دار نوحا وفرون وما اسحسوسين الله هو اللي اسحسوسيه ذكر الله سبحانه وتعالى waxaan isleeyahay waa cibaadaadka hadda yaraaday dadku salaadihii waa soo roonaanayaan cibaadooyinkii arkaanta ah waa soo fiicnaanayaan oo dadku in badan hadda wuu soo jeedaan laakiin cibaadaadkaan isleeyahay male weli may xoogaysan waxaa ka mid a ilaahay xuskiisa subxaanahu wa tacaala waa cibaado qur-aanka mala dhowr boqol oo aayadood ku soo aroortay axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaanan tiradooda hayni ku soo aroortay waa cibaado aan wakti iyo xilli iyo qaab iyo weyso iyo meel iyo waxba toona ku xidhnayn waa cibaado qofku uu samayn karo fi kulli axyaanihi hadduu weyso qabayo haddaana weyso qabin hadduu sii seexanayo hadduu soo toosayo hadduu suuqa marayo hadduu shaqadiisa haysto waa cibaado meel kasta lagu samayn karo cibaadooyinka kale inta badan xad bay leeyihin waktiyo la sameeyo iyo in laga sameeyo cibaadadani xadna ma leh ilahi wuxuu leeya ya ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kathiira war kuwa iimaanka laga helayo ilaahay waxaa xustaan xus tiro badan baa ilahay yidhi dikran kathiira waa cibaado layna yidhi xataa cibaadaadka kale markaad dhammaysataan ha ka tegina faidaa qadaytum asalaata fadkuru llah salaad baad ka baxda salaadda haddaad dhammaysataan baa la yidhi ilaahay xusa xajka aayaad badan baa ku soo aroray oo leeya ilaahay xusa maanta o dhan baad carafo taagnayd oo ilaahay baryaysay cinda almashcari alxaraam markaad timaado ilaahay xus baa lagu leeyay waxaa cibaadaad la sameeyo o dhan inta badan waa jihaad gashay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fadkuru llaha haddaad dareer gashaan baa la yidhi oo colo la kulantaan fahbutuu wadkuru llaha katiiran lacalakum tuflixuun ilaahay xusa in badan ilaahay xusa waxaa mudantiin inaad guulaysataan waa cibaado bay culammadu yidhaahdaan wax kasta saad u ah wax kasta xal u ah nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun markii ilaahay diray ee fircoon oo daaqiyo weyna iyo ciidamadiisi iyo wixiisii oo dhan haysta loo diray nabi muuse cabsu ka muujiyey ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi idhab anta wa akhuuka walaa taniya fi dikri warka kale o dhan dhaaf adiga iyo walaalkaa taga ha ka noogina ha ka daalin un aniga xuskayga baa ilaha yidhi zaad iyo xoog waxa idin ah oo idinku filan inaydan aniga ilaabin walaa tanaya fi dikri baa ilaha ku yidhi waxaad tidhaahdaa aniga xuskayga ha ka ilaabin waa cibaado ilaahay ku tilmaamayo musiibada iyo dhibtu markay dhacdo haddaad badsato in ilaahay faraj ku siinayo ilaahay nebi yuunus markii badu liqday ee xuudku sii liqday ilaahay muxuu yidhi falowlaa annahu kana min almusabixiin lalabitha fii batnihi ilaa yowma yubcahuun haddaanu ka mid ahaan lahayn kuwii tasbiixsan jiray baa ilaahay yidhi meeshu ku waari lahaa yani bitasbiixaatihi ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala farjka ugu sameeyey waa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi dacwada la jahri ee gaaladii ka hor timid fastac bimaa tu'maru waacrad can lmushrikiin inaa kafaynaaka almustahziin aladiin ilaahay wuxuu tilmaamay waxaa lagu amray ku dhawaaqo sheeg ana kaaga filaanaya baa ilaahay yidhi kuwa mustahziyiinta kuwa kugu jeesjeesaya ee ilaahay maciisa keyrkii la caabudaya laakiin
dee ma fududa waxaad qiyaasta qof bini aadam oo dunidoo dhan ka hortegaya inagoo mujtamac dhana oo muslim tiro badana oo muslim kaloo tiro badan inaga sii dambeeyo ayaynu leenahay environmentka baa dhib badan oo waa waajihi kari weyn nabi maxamed isagoo keliya la yidhi adduunkaba ka hortag dabeetana ilaahay wuxuu yihi qofka bini aadamkaa dee marka dhibta iyo mashaakilku ku bato cidhiiduu dareemaya ilaahay baa wuxuu leeyahy walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk waa ognahay baa ilaahay leeyay in laabta ku cidhiidhiyoomi doonto afxumada iyo hadalka iyo waxa lagugu waramayo dee waxaad ka garan kartaa adiga haddii inta adeerka adigoo dad kale war ilaahay raac haddii adeerkaa ku dabagalo yidhahda kan yarana u adeero waa beenti waxba ma sheegaya dhegaysanina maxaad yeeli lahay meeshaad istaagtaba adeerkaa ubaaba ku daba taagan wuxuu sheegayaana waxa weeya waxba kama jiraan wuxuu sheegaye iska taga nabi maxamed adeerkii baa dabagalay calayhi salaatu wasalaam abulahab baa daba socdoo leh wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ka dhegaysanina kan yarana adeero ahay ilaahay markaa wuxuu leeyahy walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk bima yaquuluun waogna in laabta ku cidhiidhiyoomi doonto waxay kugula hadlayaan daraaddood maxay samee baa la yidhi marka maxaa kuu xala ilahay wuxuu ku yidhi subxaanahu watacaala fasabbix bixamdi rabbik wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilahay u tasbiixso adigoo ku maraya ku dheehaya tasbiixdaada mahadnaqa allena raacinaya subxaana allahi wa bixamdihida badso inta sujuudana ka mid noqo salaadaa iyo wad baa la yidhi tasbiixaadkaasi iyadaa farajku kuugu jiraay waxay culammadu yidhahdaan diiqi nafsi kasta uu qofku dareemo laabta hadday ku cidhiidhiyoonto shaakilka adduun hadduu kugu tiro bato wardigaaga badi inagu marka mashaakilku kugu bato maxaa madaxaaga ku soo dhaca artalow yaad u tagtaa dabeetana waxaad xisaabisaa reerihii iyo dadkii iyo asxaabtii iyo yaad la xidhiidha bal hebelna u tag hebelna telefoon u dir ciddaana bal waxaa dheh maxaa tala iyo kharash iyo wardhirta bay haysatee bal wax igala qabto waxaa laynaa barayaa marka mashaakilku kugu bato ilaahay ku xidhan rabu samaawaati walard ilaaha cirka iyo dhulkaba abuuray adiga ku abuuray dunida iskale isaga xidhiidhkiisa badi saa daraaddeed ba nabi maxamed waxaa lagu leeyay calayhi salaatu wasalaam markaad cidhiidhiyoontee warkooda kugu tiro bato fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin ilaahay tasbiixdiisa badi adigoo mahadnaqiisa ku dheehaya inta sujuudana ka mid noqo waxa uu nabigu ina barayaa adduunka mashaakilkiisa inay xel kartay adduunka mashaakilkiisa iyo dhibtiisa inuu xel ka yahay ilaa xad uu nabigu gaadhsiiyey salliga nabiga haddaad badsato calayhi salaatu wasalaam idan yukfa hamukuu nabigu leeyay murugadaba waa laga qaadaya marka dunida kugu soo cidhiirto haddaad inta halkaas ka fadhiisato salligaa nabiga wadid murugada waa kaa tegaysaa buu nabigu leeyay warwarka wuu kaa kacaya aakhirana waa sidoo kale aakhirana waad ku liimaanaysaa nabigu muxuu ku tilmaamaya 7 carsh raxmaanka harsanaya maalinta qiyaamuhu waa maalin kadeed badan intaan janniya naarba la gaadhin maalintan baa ka kadeed badan maalin yarna maaha waa 50,000 sannadood baa la yidhi 50,000 years oo dadka la kala xukumayo wixii aadam dhalay oo dhabay taagan yihiin iyo wixii jiniyaysiba ahaa oo qof walba maxkamadda rabbi la hortaagayo idan waa muddo aada u dheer waa muddo cadceedu dhowdahay oo aad dhididayso wixii dembigaagu leegyahay waa muddo dadku rafaadsan yihin marka intaan janno iyo naar la aadin halkan baa kadeeda qiyaamuhu waa kadeed kale kadeedkaa dad baa jira ilaahay ka badbaadiyo nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam maalinta kadeedkaasi jiro dad carshu raxmaan iyagu iska harsanayo oo aan dhibtan qabin baa jira dadka ayaa ka mid ah warajulun dakara allaha fafaadat cayn warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaha waxaa ka mida buu nabigu yidhi mid ilaahay xusay isagoo aan cidiba la joogin keligii ah intuu ilaahay xusay ilmeeyey baa uu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam kaasi wuxuu ka mid yahay kuwa maxay maalinta tan badbaadaya innaga waxaa inugu tiro badan xuska bini aadamka
markaad soo toosno isu nimaadno maxaynu ka bilownaa war bal waran hebel xaguu ka dhaca isa badanna waa xan waxaynu ku xusaynaa kii hebel ha waxan buu sameeyey caynkan bay sameeyey wala hebelaya saamba yeeshay xan mooga yeeshay ama waad wadaa adigu ama waad dhegaysanaysaa maraad tv ka dhegaysato iyo maraad raadiyo ka dhegaysato iyo maraad nadka ka gasho iyo maraad saaxiibadaas u tagtaan oo adigu aad akhrido warbaad raadinaysaa wuxuun baad wadaa waxay ahayd inaynu ilaahay xuskiisa badino intaynu makhluuqaadka ku mashquulsannahay inaynu khalqiga warkiisa yaraysanno oo badsanno ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa si awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun wari xusa anaa idin xusaya baa ilaahay leeyahy aniga i xusa anaa idin xusaya كذكركم آباءكم وشد ذكر آبائك لإلهي تلمامي وصاء بياشيني تذكر حصة إسلام كاسك كل إلهي وحصة أيها الأحبة إلهي حسكي سمرك اللي إلابه وراهو حكت الماما يا أدنين إلهي الدنت هذه نفت هذا كل يسيني ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون بإلهي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ورهنقونين كوي إلهي إلهي تبعتنا إلهي نفتو دي يسيب لي كوي إلهي إلهي تبعتنا نفتو دي دلتو دي يسيب فاسقين تكبيري ورقوها كمن نقونين إلهي وحينات المامية سبحانه وتعالى إنه نقدر ونو حلالية وحي إلهي إني لو سينية حلالية وحي إلهي إني لو سينية حتى قرية إنه كور ربيني إلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لا تلهكم ألهى ومشغولي ويا وريا إذا كان مشغولين عروض يا ريرك يا حافظ يا كان مشغولين عن ذكر الله إلهي حسكي سيا كان مشغولين بإلهي سبحانه وتعالى القرآن كينات المامية ورمالها نان روحينين إلهي الذكر سيا ورك كلا روحيو هبط ثاني نبي محمد بإلهي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إلهي محولي واصبر مع الذين يدعون مع الله الصبر أو لتشوك هو محي إلهي كوا حصي لتشوك بالي كوا نفطها لتشوكته ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هالراعي كوا إلهي إلهي ذكر جيس كوا وحبها بترسنه إنه نفط مركا عن tababarkaasi loo samaynin meelaha ilaahay lagu xusayo meelahana waktigooda wuula tira bataa waa markaan aad layliyamin meelaha kalena waktigeeda wuu kula yaraadaa maanta waxaad leedahay masaajidkii saacad baan fadhiyay saacadaas way ku tirsanta laakiin 3 saacadood haddaad tv-ga daawanaysa ama 3 aad joogtay maxaa la yidhahdaa fadhi kudarka ama maqaaxida joogtay wax weyn uma aragtid idan this 3 hours kulama buura shaqadii baa ka imo xoogaa waxaan soo maray maqaaxidaad leedahay laakiin 3 saacadood baa soo fadhiday kulama buura haddaad laakiin markaad shaqada ka timaado masaajidka nusa saac fadhido waad sheegaysaa waa markii aad shaqada ka soo baxaysid iska yarana soo masaajidka cabaar fadhiya baad cabaarkaaga waa nusa saaca ama 40 daqiiqad masaajidka 40kaas way tirsan yihiin waa tilmaamaysaa yani waxaa ka muuqda nafteenna inaan layli wax waliba naftu in lagu layliyaa bay u baahan tahay in lagu layliyo naftu waxay barato waxa ugu yar ma noqdo haddaad casarkii koob shaaha cabbi jirto ood galabta cabbi weyday wax weyn ku dhaafeen baad moodaysa waayo naftaad ku layliday waktiga inay koobka shaaha cabto naftu waxay caadaysato hore ugama fuuqdo waxay caadaysato hore ugama fuuqdo wuxuun baa lagaga fujiyaa in la rabeeyo la kobciyo walidaalika baa waxaa nafteenna dhib ku aba meelaha ilaahay lagu xusayo ama inaad ilaahay xustaa in waktigeeduna kula tira bato
waad ku xisaabtanta maanta 20 daqiiqa qur-aanka akrinay laakiin waxa malhiyaadka ah ee dunida laysku ilowsiyo entertainmentska wax iska ahina inaanu xad yeelanin waa laga yaabaa inaad tidhahda naftu way u baahan tahay dee markasta lama hayn karaya يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم وحين يقولوا وهذا فاميلي وحكى لك كاري حولها يا عرورت يا كوكري يا كمشغولين من بالي إلهي ذكريس إنت كواسي كمشغوليان ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون بإلهي كواسا خساري بالكورن كوي كمشغوليان وحان حولي عرورت وراهين وحان داريما كوشيرين ولا يا ربطين بابا سلادة ما دبك وجرتين وحن دريبك وجرين هداكو مشغول السو حينو بغانا مركا عرب كينو إنو تبابرنا يبقوا حدا عرب كاو يكزول إنو كقويان هذا إلهي حسكيس هدو عرب كبرتو مركا دنبا نرشو وفض ضاطا واسكا عادي قارئ أنت الوضطين سبحان الله سكتنا هذا الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله وأريا كوبا وأن علايس بدنين وردن كوكو أهين وقفوا لي بس ربين كريم هذا القرآن حفظ السنة هنا القرآن كأجاس كآخر السنة أيها الحبة هذه كلمة إذا دردارك وحويان والبني آدم كحسكي سوى حنون وذنبي وعدب إلهي حسكيسون وخير وأجر تتكتم به تتكبر واحد مقلين تصبح هو بدعية وكانوا تصبحين وطوري وردي قنا وطوري وردي وطوري لا تصبح حاجة سيسي دمرك تصبح يبو طوري وردي وطوري وحوره وطوري وحوا وردي انت يرى صلاة دمرك وكبحوا هديبه ويرى فردي سبحان الله ويرى انت انك بدن عيد سما سميها بلانه انت يرى صلاتك وحريرسان waxaad moodaa inta ugu badan ee dadku sameeyeen normalka ah inay noqotay haddiiba aanu degdegaynin intaana mararba laga degdega haddii aanu degdegaynin wardiga koowaad aynu samayno markaa salaada la tukado intaa ayaa ka dhamaysa weliba intaasina inta ugu badan le waxaa la sameeyaa maalinta aad masaajidka ku tukato guriga markaad ku tukato masaajiduma lala laabtaa saasay u badan tahay hadday salaada guriga iyo meelaha noqoto sunnana ma jiro inta badan wardiguna ma jire marka 4 ragcadood la tukado ma la laabaayo laga kaca waa markaad masaajidka iyo meelahan cibaadaadka uun joogto baa laga yaabaa inaad intaana samayso aniga dardaarankayga markaa waxa weeyaan dhibaatooyinka inagu xeeran waa badan yihiin dhibaatooyinka inagu xeeran waa badan yihiin maadaama dhibta inagu xeeran ay tiro badan tahay tamarteennuna waa yartay iyo itaalkeenna iyo aqligeena iyo awooddeena dhaqaale waa yartay waxay ahayd waxa ugu badan ee aan taageersanaa inuu alla noqdo subxaana wa tacaala ilaahay dikrigiisa iyo baryadiisa iyo ku-xidhnaantiisu inay noqoto waxaynu ku rajaynayno haddii aayaadkeenu akhriyayna waxaa ka mid ahaa aabahood baa ahaa maxay saalix oo carabta ilaahay ugu ilaaliyay haddii inagu ugu yaraan dikrigeenna iyo wardigeenna iyo cibaadadeenna iyo allabarigeenna malaa u xoogganaan lahaa ilaahay reeraana waa inoo fudaydin lahaa mashaakilkan kale ayna haystaan wax badan baa nolosha inoo fududaan lahaa laakiin waxa weeyaan inana hawlgab baynu noqonnay miidaan khatarana waa joognaa inana shaqooyinkii oo dhan hawlgab baynu ka noqonnay meel adagina waynu joognaa waxaana rasmiya qofka muslimkii meelaha cidhiidhigaa markuu joogo in alla ku-xidhnaankiisu ay tiro badato oo ilaahay siduu ugu xidhan yahay ay xoogganaato dee kelmad kooban baa laygu yidhi dheh waxaan u doortuun inay noqoto war ilaahay xuskiisaa si aan badin oo wakti kuma xidhne markaad toosto nusuusta nebi maxamed ka soo aroortay haddaad aragto dadku waxay ku odhanayaan waan maxaatiraynay ama kan baanu samaynay ama kan baanu samaynay warintii nebigu samaynayba maynaan samaynay in dheeraada goor baynu isla gaadhay inta inan ka warrabin inta dheeraadka ah
nabigu markuu soo tooso waxbuu akhriyi jiray, gelinka hore waxbuu akhriyi jiray, gelinka dambe waxbuu akhriyi jiray, musqusha markuu galo waxbuu akhriyi jiray, markuu soo baxo waxbuu akhriyi jiray, masaajidka markuu galo waxbuu akhriyi jiray, suuqa markuu galo waxbuu akhriyi jiray. waxaasoo dhan waa adkaar soo arooray oo wada tawxiid iyo tasbiix iyo istikfaar iyo wax lamid ah. iyagoo iska urursan bay kitaabkan yare xusnul muslimka la idhaha jeebka lagu ridanayo iminka moobiladaabuu de ku jira isagoo sidiisiiya. xataa kuwa rasmiga haddaad wada qaybi kari weyda kuwana taqaano badso. subxaan allah iyo alxamdu lilah iyo laa ilaha illa allah iyo allahu akbar iyo laa xawla walaa quwata ila billah, kuwa mid walba waxa ku soo arooray nusuus ajarkiisa iyo wanaagiisa iyo waxqabadkiisa tilmaamaya. waxoo dhan marka isku daro waa inaynu ilaahay subxaana wa tacaala carabkeennuna uu ku jiro, qalbigeennana uu ku jiro. ilaahay inaynan marnaba haafil ka noqonin, oo gafladu waa dhib, waa waxa qalbigana dila, noloshana ay ku lunto. hiya algafla. qur-aankuna in badan badan buu masalati algafla ka warramaya. waxa haafil laga noqdana dee ilaahay iyo aakhira iyo kuwaasaa ugu xun. kelmadeedu markaa waxay kusoo koobantay ilaahay wuxuuna leeyahy wadkuru llaha kathiiran lacalakum tuflixuun. in badan ilaahay xusa, war waa liibaanaysaan baa ilaahay leeyahy, waa liibaanaysaane in badan ilaahay xusa. sala allahu calaa muxamedin wala ali saxbi wasalam.